maanta waxaan qaadan doonaa casharkii saddexaad ee maadada Excel taasoo aan ku baranaynay xisaabeedka iyo qaabka aad ugu shaqaysan lahayd adiga oo aan iskool aadayn ama jaamacad u aadayn waliba ka baranaya kanaalka Nudan. casharkan waa casharkii saddexaad waxaan ku qaadan doonaa waxa la yiraahdo row, waxa la yiraahdo column, waxa la yiraahdo runtii insert ama qaabka wax loo soo geliyo ama dad column soo gelinayso dad row soo gelinayso iyo sidoo kale qaabka loo dileedo ayaan insha Allah casharka ku baran la yiraahdo afartan ku baran insha Allah. marka waxaan ka bilaabaynaa waxa la yiraahdo column waxa la yiraahdaa hadda meesha highlight sarta u jeedin waa jooga ee leedahay column. rowgan waxa la yiraahdaa chiefka ka chief baa la yiraahdaa rowga. marka waxaan filayaa inaad fahanteen asigana row iyo column hadda waxa la kaleeyahay inaad fahanteen filayaa soo jeedin A B C D E F G had meesha ku qoran tahay oo wada column waa joogi. marka qaybtan kale chiefkana waa 1 ka bilaabataa 2 3 4 5 ka bilaabataa. marka qaybtaasna waa qaybta chiefkeeda waxa la yiraahdaa rows la yiraahdaa. qaybtan joogana waxa la yiraahdaa column. marka waxaan filayaa hadana kala fahantay waxa la yiraahdaa column iyo waxa la yiraahdaa chief iyo waxa la yiraahdaa ama column iyo row. waxaan ku xiganaysaa inuu sheegay waxa la yiraahdaa insertiga hadda tusaalaynto hadda meeshan table aan soo gelinaya qoraal meeshan qoraal baan ku qorayaa tusaalahan Nudan sidoo kale 2019 casharka saddexaad casharkii aan qorayaa marka halkan qorahan leeyahay marka online. marka hadda meeshan soo jeedin Nudan ku qoran column koobaad, column B na waxa ku qoran 2019ka, column C na waxa ku qoran casharkii, column D na waxa ku qoran waxa la yiraahdo online. marka waxaan maqan casharkii saddexaad hadda maadaama aan qaadayno casharkii saddexaad waxaan naga rabnaa in soo gelino column casharkii saddexaad. marka sidaan soo gelinaa waxaan isticmaalnaa waxa la yiraahdo insert. waxaad tagaysaa column-kan meel kamid ah column-kan D. column-ka hadda casharkii aan rabnaa soo gelin saddexaad soo ma. markii saddexaad waxaan rabnaa inuu u dhaxeeyo casharkii iyo online saddexaad inuu u dhaxeeyo rabnaa. soo marka online-kan tagaynaa waxaan leeyahay marka right click. marka right click dhahdo halkan option badan ku jira laakiin waxaa tagtaa meesha ay ku qoran tahay insert. marka insert tiraahdo waxa uu soo bixinayaa daaqadan yar. marka daaqadan ku soo baxsho meesha waxyaabo badan ku jira marka column baad leedahay soo jeedin waa uu soo galiyay. marka D wuxuu ka dhigay empty oo meel banaan. marka waxa ku qortaa saddexaad. marka soo jeedin waa Nudan oo kanaalkii ah sanadka 2019ka ah topic casharkii saddexaad ah online iyo meeshaad ku baranayso online ah. marka waa sida marka hadda waxa soo geliday soo jeedin column-ka waxa soo geliday column soo geliday sidoo kale column kale soo geli kartaa right click dhan mar kale inserted halkan waxa ka doortaa la yiraahdo column waa kan ugu hooseeya ka dooro kadibna enter dhan marka hadda halkan ku qorayso sidoo kale 2019ka 2021 2023 waa sanadka. marka hadda meesha waxa ka maqan 2019ka 2020ka maqan. marka 2020ka si uu soo geliyaa anoon training dadka badan waxa arkay waxay sameeyaan markii hal number ka boodaan wax ka qaldamaan intaan ka dambeed dhan tiraan markay tiraan kadib bay dib u soo bilaabaan. taas waa qalad. sameyntaas waa sameyn kartaa waa soo gali kartaa. marka waxa tagaysaa midkan 21 ku qoran tagaysaa marka waxa la right click leedahay insert leedahay marka insert tiraahdo haday waxaan soo gelinay Soomaan column haday column soo gelinay hadda waxaan soo galaynaa waxa la yiraahdo row. marka row soo galaynaa okay leedahay marka soo jeedin waa soo galay halka marka waxa ku qortaa 2020ka. marka uma baahnid inaad dileedo wixii ka hooseeyay inaad dileedo uma baahnid oo aad shaqada dib u soo bilowdo taas lama baahna. marka waxaan filayaa inaad fahantay. marka waxaan rabaa marka inaad dileedo hadda uma baahni salaan 2019 joognaa inta ka hooseeyo uma baahni. marka waxaan ku sameeyaa delete highlight saar adoo haya qaybta leftiga
marka laftii haydo space-ka hataa space-ka riix marka ama delete meesha ku qoran tahay waxaad riixdaa keyboard-kaada fiiri meesha ay ku qoran tahay delete ama right click dheh delete halkan delete dheh marka soo jeedin wuxuu ku tusayaa maxaan dileedaa ku leeyahay marka waxaan dileedaa column aan dileedaa ma rawgan dileedaa ma waxaan dileedaa shift cells-ka left marka keebaan dileedaa ku leeyahay marka delete baan leeyahay hada option-ka waa siinaya marka soo jeedin waa dileedayaa marka waan soo celi karaa waxaa leeyahay marka dad window isticmaalayso waa control z dad isticmaalayso macna waa command z marka waxaan filayaa inaad fahantay qaabka loo dileedo sidoo kale adoon right click waxba dhihin waxaad sameyn kartaa oo kale yahay keyboard-ka waxaa fiirisaa ama keyboard-ka computer-kaada meel ay ku qoran tahay delete falaar ama falaar ku sawiran dad isticmaalayso window delete ku qoran badanana falaar ku sawiran laakiin mac dad isticmaalayso delete kuma qorra maadaama isticmaalayo mac aniga hadda delete kuma qorra waxa ku qoran falaar bis ku sawiran marka falaarta macnaheedu falaar waxa dhinaca bidix u jeedo waaye marka waa delete ama gadaal u celi marka internet tiraada falaartaas waa delete may wixii halka ka dambeeyay sidoo kale soo celi hadda marka waxaan doonayaa mar rabo 2020 kama doonayaa soo muuqato 2020 kana dileedaan rabaa soo marka 2020 waxa u dileedi kartaa ayada dooranaysa oo kale highlight saaraysa kadina dileed baad leedahay soo jeedin halka waa ka baxday laakiin waxaan bixin rawgi ma uusan bixin marka sidoo bixin rawgi marka mar labada highlight saar halka ma dileed iyo marka kadibna okay de soo jeedin halkii oo kooda baxay marka waxaan filayaa in ka faa'iideysateen casharkan taniya inta ku kulmayna casharka afraad wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh